Hadda waxaan ka hadlaynaa maxaa la yidhaahdaa classes ayaan ka hadlaynaa. Classes waxa weeyaan kaba soo qaad waxaad haysataa objectigan qofkaasi wuu hadli karaa oo wuxuu leeyahay method ka hadal. Kaba soo qaad haddii aad rabtid qof kale inaad samaysid oon hadda haddaan copy dhahno. Okay. Qofkii hadda waxa weeyaan waxaan haysanaa laba method baan haysanaa oo isku mid ah, sababtaa qofka kalena wuu hadli karaa. Marka horta meeshan aan ka dhigno to, qofka labaad aan ka dhigno. Marka dhibaatada waxay tahay waxaa soo laalaabanaya maxay ahayd objectiga labaad haddaad rabtid inaad samaysid, mid saddexaad haddaad rabtid inaad samaysid. Methodkan way wada leeyihiin sababtaa qof kasta wuu hadli karaa, hadalka ayayna wada leeyihiin. Markaas waxaad samayn kartaa wax la yidhahdo class. Classkaas oo waxaad markasta ood haysatid class waxaad samaynaysaa markasta ood haysatid objectigaas oo leh ka badan one method ama one method iyo ka badan leh. Marka haddaan kan objectigan labaad iska delete garayno, delete dahno, waxaan ku bilaabaynaa class ayaan ku bilaabaynaa. Classka magaciisu markasta waa inaad ka dhigtid capital letter baad ku bilaabaysaa. waxaan leenahay qof iyo calaamadda la yidhahdo curly braces. Class markaad qeexaysid intaas ayaad u baahan tahay. Marka hadda methodkan aan soo qaadano aan sameynay ee hadal, marka hadda methodkii xagga ayaan keenay. waxaa kalood u baahan tahay markastood class sameynaysid method kale oo special ah oo la yidhaahdo constructor. Constructorka loo soo saaray waa methodka hadal oo kale, laakiin waa mid yacni kusoo baxa luqadda kusoo baxa oo aad u sameynaynin, oo markastood class sameynaysid aad isticmaali kartid. Marka wuxuu qaadan karaa parameter ayuu qaadan karaa. Parameterka waxaan ka dhigi karaa magac. marka magacan markaad rabtid inaad property aad isticmaashid waxaad leedahay this oo objectigii u taagan. waxaan leenahay magac wuxuu la mid yahay maxaa la dhahaa magac ayuu la mid yahay. Okay. marka haddii aan rabno hadda inaan qof kala sameyno waxaan leenahay aan kaba soo qaado waxaad leedahay qof dot koraa iska masaxna uma baahnin objectigaas. waxaad leedahay maaragtay qof object markaad rabtid inaad samaysid ereygaa waxaa isticmaalaysaa new iyo classka magaciisii oo qof ahaa. halkana waxa weeyaan magacaad rabtid ayaad bixin kartaa, cali oo kale. marka hadda waxa weeyaan methodkii haddaan intaa rabto object intaa rabtid baad samaysan kartaa, inaad yani soo laalaabto uma baahno. saalka arkaysan marka waa isticmaalaysaa ereygaas maxaa la yidhahdaa new markastood object sameynaysid. marka hadda waxaad dhigi kartaa baalkan aan boodboodaya. Okay, marka haddaan idhaahno
of dot kaas hadal baan isticmaali karaa methodkii hadal. marka classesna waa kaas. waxaan baranaynaa cashirkii hore classes ayaan baranaynay. classes marka muhiimadda laga leeyahay react waxa weeyaan yani markastoo component aad maaragtay aad samaysid waa inaad maxay ahayday aad maaragtay aad react aad maaragtay oo classeskeeda inaad soo qabsatid. marka halka tusaale ahaan aan maaragtay hadda aan sameyno waxaan haysanay classka qof, class kale ayaan sameynaynaa, macallin ayaan bixinaynaa, macallin. macallinkan methodka wuxuu leeyahay bar oo kale, yani cashiraada dadka bar. console aan dhahno log garayno bar. marka waxaan rabnaa hadda kaba soo qaad waxaan u baahannahay methodkan maxaa la yidhahdaa hadal, maadaama uu maaragtay macallin uu qof yahay uu hadli karo. oo waxay noqonaysaa hadda haddaan macallimiin badan sameynin oo kale inaan methodkan haddaba aan soo celcelino mar kale qorro. marka xalka kaa laga loo hayaa waxa weeyaan waxaan ku daraynaa halkan extends ayaan dhahaynaa. classkii hore magaciisii ayaan sheegaynaa oo ahaa qof. markaan intaa ku daro waxa weeyaan wixii information ahaa wixii properties oo classka qof lahaa oo dhan ayaan maaragtay halkan baan kasoo dhaxlaynaa oo kani uu isticmaali karaa. kaba soo qaad haddii aan haddan idhaahno variable cusub baan sameynaynaa oo ahaa macallin new macallin. marka hadda waad arkaysaa wuxuu noo soo saarayaa macallin magac oo uu lahaa maaragtay uu classka hore qof uu lahaa ayuu noo soo qabanaya ad arkaysaa. marka magacii waxaan ka dhigaynaa maxamed. marka hadda kaba soo qaad haddii aan macallin aan maaragtay variablekan aan isticmaalo propertieska uu leeyahay o dhan waad arkaysaan. wuxuu soo qabtay propertieskii uu lahaa classka qof oo kor aad ku arkaysaan oo magac iyo hadalba waxaa iska lahaa iyo karaan hadda ku daray oo ahaa bar, intaba uu noo soo qabtay. okay marka haddaan kan hadda iska masaxno oon rabno inaan hadda meeshan maxamed yani shahaadadu haystan aan rabno aan ku darno oo kaleete waa inaan halkan aan sameyno methodka la yidhaahdo constructor. marka halkan wuxuu qaadanayaa parameterka shahaado oo kale, shahaadadiisa uu haysta ayaan rabnaa inaan ku darro maadaama kii hore ku jira iyo magac. marka sef hadda haddaan idhaahno waa inaan maaragtay aan maadaama magac constructor cusub aan halkan sameynay uu midkii parentigiisa ahaa constructorkiisana waa inaan soo qabsanaa inagoo isticmaalayna keyword la yidhaahdo super. sababta haddaan hadda sef dhahno oon maaragtay consoleka furo error ayaan helay, error ayuu noo soo saarayaa. errorkaasoo ku dhahaya maxay ahayd must call super constructor. maadaama ood constructor cusub aan sameynay key parentiga constructorkiisa waa inaan maaragtay aan isticmaalaa oo maaragtay inagoo isticmaalayna keywordga la yidhaahdo super la dhaho. kadib magac ayaan ku qorayna halkaas.
kabacdi waxaan maaragtay aan propertygan ayaan initiation ku sameyneynaa. maxaa la yidhahdaa aan hadda sameynay ahayd shahaado. tibsef ayaan leenahay. marka hadda haddaan mar labaad fiirino console errorkii waa inuu tagaa weyaan. spellingkan khalday waa laga yaabaa xaggan. spellingkan khalday save aan dhahno. marka hadda errorkii oo dhan meesha uu ka baxaad arkaysaa. kana hadda wuxuu ka dawan yahay markastood component aad react sameynaysid waa inaad maxay ahayd aad isticmaashid maxay ahayd extendiskan iyo waxyaabaha kale loo baahan yahay oo dhan. okay marka hadda haddii aan macallin cusub halkan aan dhahno macallin, labadaba propertiyadooda waa inuu noo soo qabtaa. bar, hadal, magac, shahaado, macallin, waxyaabahan oo dhan waa labadaba class waxay lahaayeen oo dhan weyaan. marka